حسن شيخ محمود جيم أدق وديله وحوها جاجي واحد له إلكترونيك فيزا مدحنا الصومالية بدن كذا وحي هيستان باسبور أجنبي باسبور صومالي ما يستان باسبور أجنبي يستان بدن كذا حل ما أنا بدن كذا صوماليا برلمان كجري باسبور وحي هيستان أجنبي حسن شيخ محمود وحوه قلت لك فرماجة بلاس إن أنت باسبورك أجانب تهيستا إساي كسور جد إني ودن كسور لاورين حسن الشيخ محمود وحوده سايلنت جيم ألعب لنا رنت هذه شيء أسا كلامه بهذا يو الدون كودم بوحوه شيء قف أنا صومالي فيزا كيسنين أو باسبور انترناشنال أو تينو كسور لاورين كريم ودن كادو مربع أحمد مذوبة هو الرأ هو دنيا هو whoever you are my friend and دولدو waxay awoodaa siyaasiyiinta ama dadka gaarka u rabta inay xayiraad saarto xayiraad dhaqdhaqaaq ay saarto oo ay ka kansasho baasaboorada rooblo waa ogeydeen baasaboorkii diblomaasiga ah isagoo prime minister waddan ka soo noqday waa loo diiday dowladda xaq bay u leedahay inay baasaboorka u diido kaa qaadato baasaboorka dowladda documentiga kaliya ay ku siin kartay kaa qaadan karto waa baasaboorka whether you like it or not this is the reality markuu cirro baxo ama xildhibaanadan baarlamaanka Soomaaliya ku ciriirinaya xasan sheekh ay dibadda aadaan deegaanad kan baak ma soo noqon karaan markay baxaan baasaboorada Soomaaliya waa laga kansalaya whether you like it or not they can do Somali government way samayn kartaa baasaboorka adoo maqan way ka kansali kartaa adoo joogtana way ka kansali kartaa intay ku soo weerartay booliis ku soo dirtay ka qaadan kartaa ninka marka madaxweynaha ka awoodaas dawladaha adduunka oo dhan way xayiraad loogu talagalay in la saaro dadka dawladda ka soo horjeeda ama dad criminalka qofka markuu dambi sameeyo baasaboorka laga kansalaa baasaboor diblomaasi haysta oo Soomaaliya waa laga kansalay maxaa ku soo haray kii Mareykanka diyaarad soo raacba istiri booking ku horeysay tagto waxa la no you don't have electronic visa my friend contact your embassy Somali embassy هذا اوكي waxaad la soo baxday baasaboor Somali invalid u leeyahay marka system kala geliyo what's wrong with my passport contact your embassy u leeyahay embassy ga email u diraysa ama safaaradda tagaysa safaaradda waxay ku leedahay Soomaaliya u direynaa complaint-kaada Soomaaliya waa lagu soo jawaabayo within a week email-ka qofku uu ku dhacayo ama electronic visa application ha ahaado ama passport problem ha ahaado حسن شيخ محمود توس ugu dhahay whether you like it or not laptop kaas asaga haysto waa fiir asaga wiilashii soo kan kiima free ma ha no coming back irama ha no coming back diyaarad baad kiraysateen private jet baad kiraysateen private jet and straight flight ma samayn karto intay Mareykan ka soo boodo muqdisho kuma soo degi karto wadamo dad leeyahay soo marays waddanka markay tagto waa in passport iyo document traveling document check up lagu sameeyo way oo adinka inta soo socotaan baasabooradiina Canada you don't have electronic visa ma haysataan how can you travel to Somalia go back arugli inta nooma dhaafaysan because dawladda Soomaaliya airport kasta iyo waddan kasta waxay dhigaysaa notice kaana dhigaysaa qof Soomaali ah ama qof alaala qof adduunka baasaboor kala ka wata on electronic visa wadin nooma imaanayo waa inaad naga celisaan hawaday dadka ka baloogaan Kenya imaatay Kenya dad diyaaradaha qaadka daraad ay Soomaaliya ku digto wala ku xiray immigration ka ku xiray because you umaan marin and process skill rabi immigration ka umaan marin ugu horeeyay immigration ka fadhiya ku xiray because wuxuu ku dhaqmayaa sidii nin Mareykan adoo Soomaali ah oo ku yaqaano oo documentiyada oo baasaboorkaada uu Mareykan yahay ay ku xirayaan my friend waana ku celinayaan that's allowed baasaboorkaada wada sheegay sharciga waddanka u yaala waxa weeye foreign passport visa aan ma iman karo bas meeshii baad tagtay waad dhiibatay unugu ugu horeeya ku xiray and they book for you inay kugu soo celiyaan meeshaad ka timid
no complain. That is the constitution كي كجرتا of am visa wadani Somalia ma imaanay foreign passport they even don't arrest you intay kuma xirayaan waa ku diyaarad leh ku saarayaan waa iska ka celinayaan. This is wala basmareeyay waana shaqaynaysa hatta farmaajin ku soo noqonaa laga yaabaa Soomaaliya already his passport ki uu Soomaaliya ka haystay diplomacy passport ka waa kansalay. They don't renew kuma renew garaynayaan invalid passport airport ad kaga soo bixi kartid airport ad kaga soo bixi kartid bale hadda farmaajo passport kaliya uu haysto waa passport Soomaali waana laga kansalay kaas waa expire way already you're not coming back. Xasan Sheekh Maxamuud waa wuxuu samaynayaa wax la dhaho political filtration kan waxa waaye wax allaale wixii ka soo horjeeda inuu mid meesha ay ka imaadeen ugu xiroo rabaa waddanka tagaysa Soomaaliya cilaaqaad wanaagsan bay la leedahay airport kasta iyo meel kasta waxa la dhigay qofan Soomaaliya visa aan ka haysan noo ma imaan karo. Electronic visa is very easy, you can apply online. Ya computer ka fadhiya Xasan Sheekh Maxamuud kan ma soo noqonaya error, stay where you are my friend. Error you cannot come back. Private jet tu soo qaato dad straight flight ma soo baxayso wadamo dad leeyahay iyo space dad leeyahay isticmaalaysa hawadayda ma maraysa kugu filan حسن شيخ وعلسنا والله بالله والله حسن شيخ سو مدحوينه مر لباد كنا قلنا waa ka shaqeynaya my friend baarlamaankan gabigiisaba intii lacag la siiyo orod soo baashaara ma soo noqonayaan kuwa saaxiibihiis la abisa soo noqonaya kuwa kale ma soo noqonaya whether you like it or not. This is the reality. dawladda qofkii la shaqeeyay ay passport diplomacy siisaa passport ay siisaa ay bodyguard siisaa ay ilaalisaa. dawladda dad mucaarad ku tahay passport waa ka xayiraysaa waa ku diidi kartaa dhaqdhaqaaqay ku diidi kartaa hawadii ka xiran kartaa waa la ogol yahay my friend sharciga ogol qofka citizenka dawladda ka hor imaado ama criminal sameeyo in an passport la siin karin. Whenever you are applying a passport or reapplying or renewing a passport waa ina fingerprint soo martaa ina dambiile tahay ina dambiile ahayn haddii meesha la geliyo this is untrustable qof la aamini kara ma waxaaba kugu filanba mentally not fit kugu filan not fit yeah mentally not fit haddii la dhaho you don't get passport my friend maskax ahaan uma fiyo because qof aan fiyoobeen passport loo siiyo hadduu dibadda aadoo ku soo waasho ama la dilo ama uu dad dilo dawladda passportka siisaa responsible ka sharciyada soo barta my friend rag badan baa hadda Muqdisho ku qasban inay joogaan whether you like it or not. sharci cusub waay oo loogu talagalay in lagu filtera gareeyo mucaaradka ka soo horjeeda dawladda filtration process kaas nin kasta waa maraya rag badanna dibadda ku xirmi doonaan whether you like it or not. This is reality.